The next person I'd like to invite to the stage was a former member of Parliament to give condolences and commemorate the late House Speaker who passed away yesterday. So I'd like to welcome ex-Senator Gedi to the stage. waxaynu soo dhaweynaynaa xildhibaan hore adeer geedi aynu soo dhaweyno sacabkan aynu kor u qaadno adeer geedi ayaa soo dhaweyno wuxuu ka sheekayn doonaa taariikhda waddanka iyo gudoomiyaheenii hore ee geeriyooday mudane xamed ismaan jawaari mudane gudoomiye soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadahan qiimaha badan ee isdul saaran cid kasta ee ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa magaceeda iyo mansabkeeda dabciyan lagama tegi karo in iida magaceeda la sheego meeyaradda aan martida u nahay magaalada Kim Norton intaa kadib maadaama maanta ay tahay maalin farxadeed waxaad moodaa inaan loo oomanayn khudbado dheerdheer iyo hadal badan ee loo xiise qabo daawashada ubaxa calanka qiimaha badan leh ee maanta halka ay ku muujinayaan carruurtanya gabdhahanya qiimaha badan iyo mas-uuliyiinta kale runtii galabta waxay ii tahay maalin farxad aad iyo aad u weyn waxaan ka xumahay inaan idinku wargeliyo inay iga soo aaday maalin aan wada weynay khaasatan aniga aan gaar ahaan u waayey aqoon-yahanka qaaliga ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari haddii ilaahay yidhaaho taas waa ka hadli doonaa waxaanse rabaa intaana gelin in aanu marka hore alla uga mahad celiyo fursadda qiimaha badan leh ubaxan soomaaliyeedeen maanta arkay calanka qiimaha badan leh ilaaha suurto geliyey ayaan u mahad celinayaa marka taa laga soo tago waxaan rabaa inaan si gooniya u ammaano ku bogaadiyo ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada Rochester isla markaana ah guddoomiyaha soosa Dr. Umar Yusuf Noor waxaan ugu hambaliyeynayaa inuu ii ballan qaaday hadda ka hor xaflad lagu qabtay Mayo Clinic oo ahayd markii ugu horreysay ee loogu dabaaldego munaasabadaha qaaliga ah ee issaar saaran oo ugu horreysay 26 Juun oo ah maalintii ugu horreysay ee calan Soomaaliya taago 27 Juun oo ah maalinta Djibouti ay xorowday waxaa kaloo ay tahay 1 Juulaay oo ay tahay idana maalintii iyo koonfurta calanka ay qaadatay isla markaana ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga waxaa kaloo ku lamaanan oo la ilaabi karayn 4 Juulaay oo ah maalinta calanka Maraykanka ee horyaalka u ah calamada adduunka ee idana xorriyada qaatay intaa kadib saan hore u sheegay maanta maaha maalin qudbo maalin maaha maanta la istaaliyo waa maalin boodbood waxaan se rabaa inaan wax yar iyo laba ka xuso supervisorkaygii madaxaygii professor allah naxariista marxuum jawaari oo dhowaan ku geeriyooday Soomaaliya qaasatan caasimadda Soomaaliya mar raba inaan ku dheeraado balse waxaan ka xusayaa in 7 December sanadkii 1945 oo ku dhashay degmada Jowhar cafan degmada Afgooye oo ka tirsan shabeellada hoose waxbarashadiisa sare wuxuu qaatay sanadku markuu ahay
سجال بقول سياتر يا لبدي أسوق كقلن جبيي جامعة كلية علومته جامعة الصوماليات حيلك حاجة حيلك وسوق بتي وحو سوق بتي حيل أنا تري كريم وحسيت بدن إن دور وساردات وكسر نقضي أقاسمه جود حكي جوز تا مثلا وكان نقضي وزير سيدا وسارد جديدك وسارد جديدك عركانولك وسارد الشغادة سبورتسك وحا أنا إتابنايا وقولي هاني نقعوني أنا كوكيلة دنا الصوماليات إن برلمان كسيدات يكون الجارك هاي إلا كاني موشين للي هاي وحال السمانة يا على مدها بدها وأنا قصة من هذا السمايو مركا لا تشني قبرنا بدها وحي نوشاجين حيبت الصوماليا بد الصوماليا ونركورو يهي سدح بقول صدق يسن إن قيب بن ويهين أو لمهينو مركا كله أنا وعن كمية هاي قدومنا ونوجوا هاي بروفيسور الله نحرسان انتي ولا نيجي محمد محمود الكذاب وديجان دورشيسو يتهاي قل دقب إن أينو مدون أريتها سوسان وجوجي لهين وحنا صو ولا سرقة صوفولي حق حكومة ده ولا ليه هو إلا باسكريا وأداتين برلمان وقلاتان العاملة سمايو السيرة تلوق تقنا مركا وحور وحكون جناتين إن تلاهين برلمانكم بالجارة قوان مجاري كرايو كي يعني لاني من البرلمانكي أنا بلك قدوني وأنا الوجو لسيحلقي دولتكم بالجار كهذه برلمانكم بالجار كهاي وأنا حبيتك كهاي إن أمريكا بدل علامين اللي رسوه إلا اللي جاهله دولة رسمية أيام نقدم بيسي برلمان رسمية دولة داس أيام لما عملوا تنتهي يونتيشيكا هي أنت وقصيصه وحين الدولة دي مركز رسمي كان قدام بيسي أي قوانكو قارتي إن أن لقى وذا حلن اللوغ دعوه محكمة عالمية أي أدوكا ماشي كنا مطوال بقشين مركز بروفيسور كان مانتا لقوا أستمع قال بقدشة صومالي وحبنا لقبتي إلا نرشي الصومالي هري أنو فاتحينه ودعينه maanta ayaana lagu aasay magaalada muqdisho inta la aasina waxa ka hormareysay oo loo sameeyay hab maamuus lagu sameeyay taalada la yiraahdo dhagaxtoor janaasada waxa lagu dukaday masaajidka weyn ee Isbaaysiga kadibna waxa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo ku yaala inta u dhaxaysa tiyaatarka iyo madaxtooyada waana weyne aanu ilaahay u naxariiso aanu wada duceyno wana maasantiin